Hay aqaarta soo dhawaada muuqaalkani maanta wuxuu ku furmayaa laba wiil oo saaxiibo ah lagu magacaabo Marker iyo Walter iyo Marker sida caadada ah dhalinyarada waxay ka sheekaystaan mar walba hablaha. Walter wuxuu u sheekeynayaa Marker wuxuu ku soo sameeyay hablaha ayagoo ka sheekaysanaya sheekadaas ayaa waxay arkayaan hal mar gaari qurux badan oo baasayo waxaana saarnay gabdho gaariga intii ku mashquulsanaayeen gaarigii ayaa gudbayo ayakana waxay wataan gaari aad u foolxun. Mark wuxuu ku qoslayaa saaxiibkiisa Walter baawurka wato wuxuu u yaalo laakiin ugu dambeyntii waxa la gaaray dhalashada Mark waxay soo wada aasanayaan xaafadda Mark markii guriga imaadaan si surprise ah ayaa waxa albaabka lagu furayaa Mark iyo Walter. Isla markii Mark hooyadiis ayaa waxay keeni doonto keeg yar oo ku qoran tahay dhalashadiisa. Isla markii Marker wuxuu dami doonaa keegkii kabacdi Mark wuxuu iska soo bedelayaa dharkiisa markuu dharka soo bedelo wuxuu arkayaa gabar yar oo guriga joogto iska bedelaysa dharka magaceedana waxaa la lahaa Melanie isla markii uu wacay xir geedka yar ee hablaha xirtaan. Isla markii Mark asigoo u xir rabo hooyadiis ayaa imaanayso waxayna ku leedahay iska tag aniga caabinayo. Mark isla markii wuxuu xakeelayaa Melanie iyadoo la qaadanayo waqti swimming pool ayuu Mark wuxuu isku dayaa inuu la hadlo Melanie laakiin Mark Janice ayuu u weynayaa laakiin saaxiibkiisa Walter ayaa wuxuu ku dheereeyo si hablaha loogu hadlo wuxuuna u keenayaa fikradaas oo ah in hooyadiis iyo adeerkiis ay cabado isku raacaan casho oo uu sheego inay waqtiga soo wada qaataan. Isla markii Mark wuxuu aasanayaa xaafadda wuxuuna u sheegayaa hooyadiis iyo adeerkiis inay waqti soo wada qaataan ee banaanka aastaan. Isla markii fikirku way ku raacayaan hooyadiis iyo adeerkiisna waxay aasanayaan banaanka waxay soo wada qaadanayaan waqti. Guriga waxa laga dhigay mid faaruq ah. Isla markiina Mark message u qorayaa Melanie markuu message u qoro waxa guriga imaanayo Melanie saaxiibadeeda asigana waxa la socdo Walter. Gurigii ay waqti ku wada qaadanayaan dhamaantood. Midda kale habeenkaas waxa waqti soo wada qaadanaya ay kane Mark hooyadiisa iyo adeerkiis. Maalintii ku xigtay Mark wuxuu soo aasanayaa suuqa wuxuuna rabay inuu ka soo gato mashiin yar. Isla waqtigii waxay kulmayaan habeenadan oo jirto 40 sano. Isla markii Mark iyo habeenadan waxa dhaxmari doona hadal wuxuuna u sheegi doontaa mashiinku ka maqan asiga inuu iyada hayso waxaana siinaysaa mashiinkii. Isla markii banaanka ay soo baxayaan wuxuuna u sheegaysaa in lacagta iyada bixisay. Mark waxay ku leedahay waxa iga halaysan tubada quweyska ee ma ii sameey kartaa tubada quweyska. Mark wuu ka aqbalayaa arintaas waxaana ku qaadanaysaa baawurka. Mark wuxuu tagayaa guriga markuu tago wuxuu u sameeyaa tubada halkaasna wuxuu ku wada cabi doonaan cabitaan. Markay wada cabaan Mark iyo cabitaan waxay ka codsanaysaa Mark in uu soo raaco suulida quweyska. Isla markii Mark iyo iyada waxay isku soo raaci doonaan suulida quweyska waxaana u sheegi doontaa in ay la quweysato. Isla markii Mark wuu ka aqbali doonaa wuxuuna ku biiri doonaa iyada halkaas ay isku quweysan doonaan. Isla markii waxay jeli doonaan jacayl waxayna isla seexan doonaan habeenkii waa mid ka soo dhaxay asiga gurigiisa soo seexday naagtii oo soo bartay gurigeeda. Mark suuxii wuxuu imaanayaa xaafadiisa markuu Mark suuxii imaado xaafadiisa hooyadiis ayaa weydiin doonto meeshu xal jiray laakiin asiga uu iska boojeenay oo mana sheegayo. Mark wuxuu aasanayaa asxaabtiisa wuxuuna aasanayaa swimming poolka markuu aastay swimming poolka waxaa jooga meeshaas Walter wuxuuna u sheegayaa Walter wax kasta oo xal soo dhaceen asigoo habeenkii ku xiga Mark wuu soo diyaarinaya wuxuuna soo xiranayaa dhar suud ah markuu soo xirto hooyadiis iyo adeerkiis oo jooga meesha wuxuu u sheegi doonaa hooyadiis inuu bixayo wuxuuna leeyahay waxaan aasanayaa casho cabada. Hooyadiisa waxay ka fiirinaysaa daaqada marka fiiriso waxay arkaysaa haweeney wadato gaari inay banaanka ku sugayso. Isla markii Mark wuxuu raacayaa haweeneydii wadatay gaarigii waxayna aasanayaa meelaha kafeteriga. Kurisa waxay u sheegaysaa Mark wax badan inay bari doonto ee u noqon doonto macallimad nolosha ah waxayna u sheegaysaa inay caawi doonto asiga wax kasta u baahan yahay lacag iyo wax walba laakiin waxayna u sheegaysaa iyada dhankeeda inuu soo bato asiga. Mark wuu ka aqbalaa arinkaas markii Kurisa ay baxdo nin meesha jooga ayaa wuxuu u sheegi doonaa Mark inay qoftaan tahay qof halis ah oo iskaga haro laakiin Mark hadalkaas ma maqlayo. Maalintii ku xigtay waxay wada fadhiisanayaan hooyadiisa Mark markay wada fadhiistaan hooyadiis waxay ku leedahay waa ii sheegi jirtay wax walba waana ila wadaagi jirtay wax walba laakiin ayaamahan ima sheegin wax kasta oo jiro laakiin Mark ayaa ah mid asiga iska boojeeyo mar kale. Maalintii ku xigtay Mark wuxuu aasanayaa guriga ay degan tahay Kurisa. Guriga ay degan tahay Kurisa waa guri aad u qurux badan leh swimming pool asigana Mark wuxuu jecel yahay swimming poolka. Mark waa mid ku raaxaysanayo nolosha Kurisa iyo gurigeeda. Mark wuxuu ku dabaalanayaa swimming poolkii. Mark wuxuu u marinayaa kareem Kurisa jirka dhan waana mid asiga la raaxaysto Kurisa laakiin hooyadiisa ayaa waxay hagaajinaysay qolkiisa waxayna ku arkaysaa taleefankiisa oo ugu tagay meesha xitaa taleefankiisa uu ilaaway. Mark taleefankiisa ayaa wuxuu ku arkaysaa lambarkii Kurisa oo meesha saarnaa waxayna qoraysaa taxi message waxayna ku leedahay imaada xaafadda cabadana isla wada casheynay. Isla markii waxaa guriga imaan doono Kurisa iyo Mark oo isla wada socdo waxaana meeshaas ku wada cashay doono Mark iyo Kurisa Mark hooyadiis iyo adeerkiis. Habeenkan waxaa ka wada dhacay meesha isbarashada kadib markii loo gudbo Mark hooyadiisa waxay leedahay Kurisa. Mark wuu yar yahay asiga waana wiil aad u da'yar wuxuuna ku jiraa sanadada 8-yada. Mark hooyadiis waxay leedahay ilaa hadda aniga ka mas'uul ah Mark ma ahan mid qaan gaar Mark wuxuuna dhigtaa iskuul marka waxay leedahay iskuulkiisa iyo waxbarashadiisa ha ka qasin Mark laakiin Kurisa ayaa inta xanaaqdo iska ka tagi doonto meesha. Cashada waa loo kala kici doonaa Mark hooyadiis waxay u sheegi doontaa wax walba adeerkiis ayay wax kasta u sheegaysaa hooyadiis waxaana u sheegaysaa Mark asiga inuu
yahay wiil aad u da'yar oona weli qaangaarin qaangaarka 18ka waxayna u sheegaysaa in oo mar kasto ay ka qaldan tahay naagtaas iyada laakiin waa mid ku raaco asiga. Mark wuxuu kasoo daba bixi doonaa Carissa wuxuuna u sheegi doonaa inay ka raali noqoto hooyadiisa wuxuuna raaligeli doonaa Carissa wuxuuna u sheegi doonaa inay qaldan tahay hooyadiisa laakiin isla markii Mark waxay leedahay isoorac hooyadiis oo ka daba qaylinayso ayuu Mark wuxuu raaci doonaa Carissa markuu raaco waxay usoo wadi doontaa xaafadeeda marka uu soo wado xaafadeeda Mark iyo Carissa sida caadadooda aheeday way isla dabaala doonaan waxayna gacmaha ugu xiri doontaa jeebad. Mark hooyadiisa waxay baaraysaa ama baaritaan ku sameynaysaa Carissa waxay tahay Carissa waxay ogaanaysaa inuu qabi jiray nin 9 sano jiro ninkaas oo hadda dhintay aan la aqoonin wuxuu ku dhintay isla markii Mark hooyadiisa way ka naxaysaa arrinkaas. Carissa iyo Mark way iska soo agkacayaan subaxii markay iska soo kacaan subaxii Carissa waxay u soo jeedinaysaa in ay ku soo qaataan xeebaha dalal kale dalxiis laakiin Mark ayaa arrinkaas ka diidaya wuxuuna u sheegayaa in uu iskuulka u furmi doono goordhow laakiin Carissa arrinkaas way ka xanaaqaysaa. Waxaa isla markii lasoo gargaraaci doonaa guriga markii lasoo gargaraaco isla markii guriga waxaa taagan Mark hooyadiisa waxayna u wadaa Mark maadaama xalay xaafad imaanin waxyaabo macmacaan oo asiga cuno. Carissa ayaa kala yaabayso wayna ka qaadaysaa wixii macmacaankana isla markii iyada ayaaba cunayso isla markii waxaa si naxariis la'aan loogu soo xirayaa albaabka Mark hooyadiisa. Mark oo iska bedelayo dharka ayaa wuxuu ku arki doono meesha dharka bistooladii ayaa wuxuu ku qari meesheed. Mark iyo Carissa waa kuwa wada hadlo mar kale waxayna ka wada hadli doonaan mar kale in ay Carissa u wado Mark xeebaha dalxiiska laakiin Mark ayaa ka diidi doono mar kale. Carissa markii hore ma xanaaqin laakiin hadda ayay u xanaaqi doontaa si fiican wuxuuna u sheegi doonaa mar kale inuu asiga leeyahay iskuul oo la gaaray xilliga iskuulkiisa u furmi lahay oona u raaci karin dalxiis. Mark isla markii waxaa soo dooni doona saaxiibkiisa Walter wuxuuna ka qaadi doonaa guriga Carissa markuu ka qaado wuxuu weydiin doonaa Walter Mark wuxuu ka aqabto islaantan 40 jirka wuxuuna u sheegi doonaa islaantan inuu asiga ka cabsoonayo hadda oona ku arkay gurigeeda bistoolad. Mark hooyadiisa waxay la hadli doontaa Mark adeerkiisa waxayna u sheegi doontaa waxay kala soo kulantay gurigaas waxayna u sheegi doontaa in albaabka loogu soo xirisay naxariis la'aan ah. Markna oo hadal ka maqlaynin isla markii wuxuu soo jeedinayaa adeerkiis Mark inuu yahay Mark qof aan asiga aad loo tarbiyeen. Mark subaxiiba waa mid asiga raaligeliya oo video call ka waco Carissa wuxuuna u sheegayaa inay ka raali noqoto oona ka raaligeliyo arrinka ku dhaxay maalin horeetay laakiin Carissa ayaa ka codsanaysa mar kale inay wada kulmaan waxayna ku balaminaysaa meelaan guriga ahayn. Mark markuu soo degto miiska qadada waxaa joogto Melanie oo ahayd saaxiibtiisa hore. Melanie ayaa ka codsanayso Mark inay u raacdo banaanka ayna isla soo qaataan waqti. Mark wuu ku ogolaanayaa inay raacdo Melanie iyo Mark oo isla socdaan ayaa Carissa ka arki doonto meeshiisa markay ka aragto Melanie markay soo noqoto ee ku soo noqoto gaariga waxa uu saaran Carissa ayaa mid ku qabanayso afkana ka xirayso sidaas ay ku afduwanaysaa Melanie. Mark waa mid waaye Melanie wuxuuna wacayaa Melanie ma ahan mid ka qabanayso iyada taleefanka. Maalintii ku xigtay Mark hooyadiisa waxay u sheegaysaa Mark adeerkiisa in oo asiga Mark oo ka haray Carissa oona hadda la socdo Melanie wayna ku farxayaan arrintaas. Isla markii Mark wuxuu taleefanka ka wacayaa Melanie ma ahan mid ka qabanayso iyada isla markii Mark wuxuu la kulmayaa saaxiibkiisa Walter wuxuuna u sheegayaa Melanie inay taleefanka qaban laadahay arrintaasna oo la yaaban yahay asiga. Carissa ayaa waxay imaanayso meesha ka shaqeeyo Mark adeerkiisa waxayna u sheegaysaa Mark adeerkiisa in iyada ay rabto inay la kulanto Mark wuxuuna u sheegayaa Mark inuu joogo guriga. Carissa waxay imaanaysaa guriga markay timaado Carissa waxa guriga ka furayo Walter. Mark maaha mid joogo gurigana ma joogin cidna. Walter iyo Carissa waxa dhaxmarayo hadal. Walter wuxuu u sheegayaa Mark asiga inuu iyada jecleen oo jecel yahay Melanie arrintaas ayaa waxay ka xanaaqayso mar kale Carissa. Mark maaha mid ka quustay asiga Melanie wuxuuna wacayaa Melanie isla markii oo Melanie ka qoweyso waxa soo galayo Carissa ayaa waxay u sheegayso in ay shaqo siisay Mark shaqo ka siisay shirkadeeda. Carissa waxay u sheegaysaa in uu u yimaado Mark asiga si ay ka wada hadlaan shaqada laga siiyay. Mark asiga isla markii wuxuu aasanayaa Carissa waxaan meesha joogo ninka jooga meeshaasi waa ninka mas'uul u ah shirkadaha Carissa. Isla markii waxay loo saxiixayaa Mark inuu ka shaqeeyo shirkadahaas laakiin markuu ninkii baxay ka bacdi Mark wuxuu u hambalyeynaysaa shaqadoo helay asiga Mark. Isla markii Mark uu sii jeesanaya waxayna madax ugu jibinaysaa dhalo. Mark way xiri doontaa Carissa waxayna ku xirinaysaa guriga hoostiisa oo ugu yaalo qol laakiin Mark meesha ay ku kufto doontaa Carissa waana mid ugu xiran asiga dhulka hoostiisa. Mark hooyadiisa waxay ka walwalaysaa Mark subaxii waxayna wacaysaa dhowr badan. Mark taleefankiisa lama qabanayo cid qabanaysana malo. Isla markii waxaan arkaynaa Carissa oo Mark inqaawayso. Markina wuxuu soo xasuusan doonaa ninkii joogay cafeteriga oona ku dhahayay naagtan waa halis ka leexo. Mark hooyadiisa waxay la tashan doontaa Mark adeerkiisa waxayna u sheegi doontaa xaaladda inay marayso meel xun ee laadahay Mark. Isla markii Carissa ayaa waxay arki doontaa taleefanka Mark
miskoolo ku yaalo koolkaasoo ah koolale soo wacday Mark hooyadiisa. Laakiin isla markii waxay u qori doontaa text message waxayna dhihi doontaa waxaan kugu casuumay gurigeyga ee imaam aniga ula jooga Mark. Isla markii waxa uu imaanayso Mark hooyadiisa. Markii Mark hooyadiisa u imaato waxay u sheegaysaa in u baahan tahay haddii aragto Mark in ay jeebada gacanta ku xirato. Waxayna yeelaysaa hadalka Carissa. Waxayna gacmaha ku xiranaysaa jeebada. Marka ku xirato waxaa la keeni doonaa qolkii ku xiran yihiin Mark iyo Melanie. Muuqaalka ku xigay waxaan arkaynaa Mark adeerkiisa oo ka walwalayo asiga meelay aasteen Mark iyo hooyadiisa. Wuxuuna wici doonaa taleefanka Mark hooyadiisa, laakiin ma ahan mid laga qabanayo asiga. Mark iyo hooyadiisa waxaa loo sheegi doonaa inuu qofkood mid oo isdilo. Waxaan ugu tagi doontaa bistoolad, laakiin bistooladay uu tagtay meesha ma ahan mid xabad ee ku jirtay. Laakiin isla markii Mark hooyadiisa waxay qaadan doontaa go'aankaasoo ah in iyada ay isdisho. Isla markii xabad dhuunta ku aadiso ma ahan bistooladii wax ku jiray. Carissa ayaa waxay maqlayso in xabada ay riday. Isla markii way soo baxaysaa waxayna imaanaysaa meesha. Isla markii albaabka soo gali rabtana waxaa gadaal u galayo Mark hooyadiisa. isla markii meesha waxa ka dhacay dagaal waxaan laga xoog badinayaa Carissa. isla markii Mark iyo hooyadiisa waxay ka baxsan doonaan meeshii. markay ka baxsan Mark iyo hooyadiisa meeshii waxay soo aasan doonaan guriga banaankiisa. laakiin Carissa oo wadato midi ayaa ka soo daba cararayso. markay soo daba carartay Carissa meeshii ayaa lagu dilaya. markii lagu dilo Carissa waxa meesha ku jira asigana oo la soo badbaadinaya Walter oo ahaa Mark saaxiibkiisa. isla markii waxay soo aasan doonaan xaafadahooda. markay soo aastaan waxaan arki doonaa siinka ku xigo in Mark la macsalaamaynayo iskuulkiisa oo u furmay. filimkeen maanta wuxuu ku dhamaaday meeshaas. waxaan ninka tegayaa intaan ku kulmayno muuqaalkan camal. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.